dowladda aan u adeegayo aan u shaqeynayo waxa waaye in aan cadowga aan u jawaabno jawaabtaasna waxay tahay in aan cadaalad u fidino shuhadada qaabka ugu habboon aan cadaalad u fidin karna waxay tahay wixii ahdaafkii shuhadadii ugu horreysay aabahay ee lahaayeen in waddankan horumar la gaarsiiyo oo ay noqoto waddan la tartan karta wadamada adduunka inaysan hadafkaas aysan lumin oo aan maanta aan noqono markhaati nool oo aan riyoonkooda ahdaafkooda aan sii wadno intaas kadib waxaa runtii farxad weyn ii gelinaysa ama ii diigelinaysa inay jirto maanta adeero qiimo badan oo maanta halkan ku sugan oo ugu horeysa wasiir Cabdiraxmaan Aldaala oo tacsidii geerida kadib ilaa maanta uu taagan yahay oo runtii garab iyo gaashaan ah waxaa sidoo kale kamid ah maxalla xildhibaanada qaranka oo adeeray Maxamed Ajiib iyo Cabdirasaaq Xusal oo runtii xataa dhibaatooyin kasta aan la kulmo aniga shaadadii kale iyo maxalla qoyskii yariiso oo ay mar walba ay taagan yihiin oo ay mar walba dhiirigelinayaan taasna runtii waxay siinaysaa motivation inaan maxalla ahdaafkii ama rooyinkii aabahay aan sii wado intaas kadib waxaan hilmaami karin maamulka gobolka Banaadir gudoomiye Jawahar Barqab oo runtii iyadana tahay halbowlihii gobolka Banaadir oo la'aanteed wax badan aan socon karin maama adina si gaar ah ku mahadnaqa runtii sidoo afyeenka hadda xuseen anigu ku maqan howlo shaqo oo dibadda ku maqan aniga walaalkay Liban waxaan go'aaminay sanadkan inaan ka maqnaanaynin waayo sida wada soconnaa waddanka waxay ku jirtaa xoreyn dib u xoreyn anina inaan maxalla inaan kaalinteena aan qayb ka hadno sida aan maxalla ciidamada aan dhiirigelin lahayn ama shacabka Soomaaliyeed aan maxalla fariintii si kasta aan gaarsiin lahayn in waddankan maxalla ay noqon karto waddan la tartan karta wadamada adduunka intaas kadib maxalla waa ognahay dhammaan badankeena inaan Soomaaliyeed hadalka intaas aan ku gabagabeynaa waana mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum